This is Somsat News, the voice for all. iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ku sii qulqulayaan magaalada Taleex ee xarunta maamulka Khaatumo ergooyinkii uga qayb gali lahaa shirweynaha Khaatumo 3 ayaa haddaba waxa maanta si diiran lagu soo dhaweeyay magaaladaasi ergooyinka beeraha Yaxye iyo Gabooyo waxa warbixintan magaalada Taleex nooga soo diray wariyahayaga Sakariya Saxafi waxaa maanta magaalada Taleex ee caasimadda maamulka Khaatumo lagu soo dhaweeyay beesha Yaxye oo hogaaminaya aqalka guud ee beesha jaamac maxamed caawad guuleed waxaana soo dhaweynta beesha kaalin weyn ka qaatay dadweynaha reer Taleex oo aan u kala hadhin waxaana ugu waran hadal soo dhaweynaya madasha ka soo jeediyay Cabdillaahi Cumar Yaxye Cabdillaahi Jees waxa isna soo dhaweynta ka hadlay caaqil aadan axdar waxaanu nahay ergadiisii joogtay caasimadda Khaatumo ee Taleex xalay ku 28 habeen baanu joognay deegaankii Taleex iyo ergooyinkii baanu ka koobanahay waxaanu si aan kala hadlahayn u soo dhaweynaa anagoo ah dadkii joogay Taleex waftida ka timi Laascanood ilaa Yagoori ilaa Buuhoodle ka timi oo caaqilku hogaaminayo waxaanu leenahay soo dhawaada caaqil soo dhawaada adiga waftada soo dhaweynaa si kaliya laabaan idin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada caasimadda Khaatumo ee Taleex simbadii ay joogaan siyaasiyiintii joogaan xergadii joogto dadweynihii dhammaan nabad qab iyo wanaag lagu joogo waxaanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba waftadina sharafta leh soo dhawaada aad iyo aad u soo dhaweynaa si kal iyo laabaan u soo dhaweynaa ergada beesha Yaxye oo jidaal iyo beesha Gaboobay oo haddana soo gaadhay kuwaasoo jidaal dheer soo maray waxaanu ilaahay mahadi aanu anahay anagoo ah ergooyinkii ka soo horeeyay ee ka yimid gobolka Cayn waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaa si kal iyo laaba ergooyinkan maanta ee galabta halka soo gaaray Taleex waxaanu leeyahay welcome falyatafadal ku soo dhawaada caasimadda gobolka caasimadda maamul goboleedka Khaatumo ee Taleex Khaatumo hanoolat وما هالصنطة قيمة الشرف وحا مضن وضياشة اللي يرضى مروئيو وضيال دمان بوحا قيمة الشرف ومضن تدوينها يسور دويي يسيدا شرفتي قيمة على يسور دويي قيمة الشرف مضن وحا قلو قيمة الشرف مضن باشا قيمة باشا Taleex ee gogasha dhigtay gogashi horana dhigtay ceebtu kaga intana ceebtu kaga iman doonin waxa qiimo iyo sharaf mudan gudida qabanqaabada edeliye dibad qabanqaabisay beelaha ku shiri doona magaalada Taleex ee laga dhisayo Taleex waxaanu ilaahay uga baryeynaa in lagu guuleysto waxaanu salaameynaa dadweynaha wax allaale wixii ka soo qayb galay ee dhulbahantinimo iyo midnimo iyo israac iyo wadajir iyo nabadgelyo ka shaqaynaya ee doonaya ayaanu salaameynaa maamulka Khaatumona waa salaameynaa oo isaguba waxa weeye madaxdii ugu sareysay ama halkii ugu sareeyay dhulbahantaha Khaatumo waa halkii ugu sareysay laakiin dadka Taleex degan ee gogasha dhigay ee hadalba ku weeyay mar labaadkii dhigay ayaanu salaan aad iyo aad oo salaan qabiila ayaanu u sidnaa assalaamu alaykum kale waxa maanta caasimadda maamulka Khaatumo lagu soo dhaweeyay beesha Gabooyo oo hogaaminayo aqalka beeshaasi deer baan soo maray jidkaan soo maray safarkaan waxaan u soo galay inaanu ka qayb galno dhismaha dawladda Khaatumo State of Somalia ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay noo tayasiro hawlaha aanu ka leenahay baan ilaahay ka baryayaa halka iyo dawladda dhismadeeda hadalkayga galabta intaasaan ku soo koobayaa maadaama uu yahay soo gelitaan iyo soo dhaweyn isku soo wada duubo caasimadda maamulka Khaatumo ee Taleex waxaa ku soo qulqulaya kumanaan kun oo qof kuwaas oo ka mid ah ergooyinka shirka Khaatumo 3 Zakariya Cabdiraxmaan Axmed Sakariya Saxafi Somsat TV Taleex